بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة وناكسن ميل كستا joogtaan saaxiibada qiimiga badan meel kasto aad nagala socotaan waan salaameynaa harba maantina idin sheego qofnaha siin ixtiraam ka badan intuu xaq ugu leeyahay qofnaha siin ixtiraam iyo wanaag ka badan intuu xaq ugu leeyahay sababtoo ah markasto aad bini aadamka ixtiraam saayid u muujiso ama wanaag saayid aad u muujiso waxaad noqonaysaa qof ay u fududahay in lagu ciyaaro geedka ubaxa la yiraahdo waa geed aad u qurux badan dadkuna ay jecel yihiin inay beertaan dabcan marka geed la beeray wax loo baahan yahay in la biyeeyo oo si uu u baxo geedkaasi oo noqdo geed hana qaaday oo maaragtay weynaada geedka ubaxa la yiraahdo markasta oo aad biyaha ka badiso oo aad siiso biyo ka badan intuu xaq u lahaa wuu dharaa wuxuu noqdaa geed kala daatay si maaragtay habaxabac u ah oo gebigiisuba caleemihiisu xataa way iska daataan marka taa bedelkeeda waxaa jira wanaag ilaahay ina faray quraanku ina faray nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam intii uu noolaa xadiisadii ka soo arooray ugu badnaayeen in qofka dadku wanaag aad u sameeyso ixtiraam u sameeyso aad qofka intii aad ixtiraami karto aad ixtiraamto laakiin taa bedelkeeda hasiin qofna ixtiraam ka badan intii ay diinteenu ina fartay oo kitaabkeena uu inoo sheegay hasiin sababtoo ah markastood qofka wanaag badan u muujiso waxa ku fududaanaysa inuu adigu kugu ciyaaro bini aadamku way jecel yihiin qofka inta aanay baran oo ay banaanka ka joogaan dabeecadihiisa habdhaqankiisa iyo sidoo uu nool yahay laakiin markasto ay kula falgalaan noloshaada ay bartaan bini aadamku waa markasto ay ku nacaan waxyaabahaaga preference-ga ah ama gaarka ku ah ee aad adigu leedahay ha u soo bandhigin qofna si xad dhaaf ah ugu sheegin qofna si niyad samaan oo wanaag ku jirto ha ugu bandhigin sababtoo ah markasto ay dadku ogaadaan waxyaabaha gaarka ku ah waxa u fududaanaysa inay ku caayaan waxa u fududaanaysa inay ceebahaaga raadiyaan qofna ha u soo bandhigin waxyaabaha gaarka ku ah inta gaarka ku ah sababtoo ah waxaad ka badbaadaysaa in lagu caayo waxaad noqonaysaa Soomaaliduna waxay ku mahmahdaa afdab wala waa dahab markasto aad afkaaga kala qaado oo aad qof wax u sheegto waa markasto oo qofka aad u sheegto meel uu ka soo gali karo ama kaaga ciyaari karo ama maarta oo kugu caayi karo ama kugu ceebeysan karo sidaa daraadeed qofnaha siin ixtiraam ka badan intuu xaq u leeyahay qofnaha siin wanaag ka badan intuu xaq ugu leeyahay oo diinteenu noo sheegtay qofku inuu qof wanaag badan noqdo naxariis badan noqdo ixtiraam badan noqdo dadka ixtiraam waa wax fiican waa wax diiniyan wanaagsan waa wax dadnimo ahaan wanaagsan waa wax qofnimadiisa u wanaagsan laakiin markasta waxaasi bataan oo aad saayid ka dhigto oo aad badiso oo dabacsanaanta iyo jiljilaaca iyo wanaaga aad dadka u soo bandhigayso aad badiso waa markasta dadku helaan dariiq ay kugu ciyaari karaan waa markasta dadku ku arkaan qof daciif ah oo waxba qabsan karin qof daciif ah oo waxba noqon karin qof daciif ah oo naftiisa ku kalsoonaan karin ama naftiisa wax u qaban karin sidaadanaadii ha iska ilaali wax kasto bata xumaan bay leeyihiin wax kasto bata dhibaatay leeyihiin habadin oo saa'id ka dhigin oo hasiin qofna ixtiraam ka badan intuu xaq kugu leeyahay ixtiraam dadka wanaag u sameey jacayl u sameey laakiin ha ka badbadin hadaa ka badbadiso waxa la ogaa waxa qofkaasi ogaanaya markasto aad ka badiso dariiq uu kugu ciyaari karo dariiq uu naftaada ugu ciyaari karo ama naftaada dhibaato ugu gaarsiisan karo sidaa daraadeed qofnaha siin ixtiraam ka badan iyo jacayl ka badan intuu xaq kugu leeyahay qof kasta wuxuu xaq kugu leeyahay waad garanaysaa intuu xaq kugu leeyahay oo mari laakiin inta ka badan adiga dhibaato ku keenaysa in qofkaasi ku caayo inuu ku ceebeysto ama inuu kugu ciyaaro oo qalbigaaga uu ku ciyaaro saadaradeed iska ilaali inaad dadka u soo bandhigto wanaag kasto aad leedahay ha u soo bandhigin ha ku bixin waqti badan inaad dadka tusto waxa aad tahay iyo waxa aad qaban karto iyo waxa aad yeeli karto wanaag aad sameyn karto laakiin samay marka dadku iyaga ku baranaya iyaga ku ogaanaya iyaga ku arkaya laakiin qofkaas markaas awood ma leh inuu ku ciyaaro sababtoo ah noloshaadii kuma dhex jiro waa qof banaanka ka arkay wixii wanaag aad sameeynaysa saadaradeed qofna ha u soo bandhigin xataa jacayl ka badan jacaylka xaq u leeyahay qofna ha u soo bandhigin
qofna ha siinin jacayl ka badan intuu xaq kuugu leeyahay, wanaag ka badan intuu xaq kuugu leeyahay, ixtiraam ka badan intuu xaq kuugu leeyahay. bini aadamkuna waxay ku fiican yihiin dusha inay iska bartaan, dusha inay iska yaqaanaan. mar kasta ood qofka dhex gasho ama qofka aad barato ama qofkaas uu kusoo dhex galo, waa mar kasta qofkaasi ama uu kugu ciyaaro ama uu ku caayo ama uu ku ceebeysto. waa mahadsantiin saaxiibada qiimiga badan. jimco wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. waa walaalkiin maxamed maare oo idin salaamaya. khayr alla idin siiyo. waa idin salaameynaa. jimco wanaagsan. muuqaalkan hadduu kusoo gaarana gaarsii saaxiibadaada kale oo sheergaray ama qeybta hoose ee commentiga motion ku dhan saaxiibada aad la jeceshahay inay intan yar ogaadaan oo aan dareensanahay qof kastiina ogyahay, laakiin ay iga tahay uun inaad xasuusiyo. waa mahadsantiin saaxiibayaal. khayr alla idin siiyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.